madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka in la isugu yimaado shir 22ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka Soomaaliya. xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyay waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho. waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dirir. isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay'adihiisa ay wada dhisan yihiin dastuurigaha intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doontaa. haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado dawladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado. sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. guddida farsamada anugaan guddoomiye u ahaa waxaanu soo qorshaynay ajandaha shirka. wuxuu socon doonaa 2 maalmood, Isniinta iyo Talaadada. labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dawladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax bannaanidiisii ay meel fiican marayso. dawladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaalaya, badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waado. haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimaadno. doorasho